asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waa daalaca news channel. daawadayaal meel kastood joogtiin waxaan idinleynaa kula wanaagsan. xubinteena dhacdooyinka layaabka waxaan kusoo qaadanaynaa oday geeriyooday kadib markii uu xaaskiisa ku dilay maqar. oday lagu magacaabo Rifao Iraawo oo dhashay dalka Nigeria, da-diisuna ahayd 6 jir, ayaa la sheegay inuu geeriyooday wax yar kadib markii uu xaaskiisa ku dilay maqar. warbaahin dalkaasi ayaa sheegtay inay qoyskaasi oo ku noolaa deegaanka Alakowe ee gobolka Uzum ee dalkaasi uu soo kala dhexgalay xurguf, isagoo ninka ka hinaasay xaaskiisa meel gooni ah la taagan rag badan oo arkay. qoyskaasi ayaa la sheegay inay lahaayeen baar lagu qamriga cuntada, waxayna ka wada shaqeyn jireen meheradaasi iyadoo odaygu iibin jiray qamriga halkay xaaskiisana ay iibin jirtay cuntada ay macaamiishu u kariso. waxa uu xaaskiisa oo aan la magacaabin kaga shakiyey inay xiriir hoose la leedahay qaar ka mid a ragga macaamiisha oo ah goobtooda ganacsiga, balse marwadu waxay markasta beenin jirtay arrintaasi. waxaa la sheegay inuu uga digay falkaasi dhowr jeer, balse waxuu maalmaha kamid a sheeda ka arkay iyadoo nin ka mid a macaamiishooda la faqaysa, waxaana galay dareen ah inuu xiriir hoose kala dhexeeyo. odayga reerka ee Rifao Iraawo waxau la soo baxay maqar, wuxuuna ceyrsaday xaaskiisa oo ka carartay, kadibna waxa uu ku garaacay maqarkii ilaa ay ka geeriyooto. booliska deegaanka ayaa sheegay dhacdadaasi kusoo baxay, waxayna eedeysana u gudbeen booliska si ay su-aalo u weydiiyaan, balse isna wax yar kadib ayuu geeriyooday. warbaahin dalkaasi waxay kaloo sheegtay in ninkaasi uu geeriyooday wadna xanuun kadib markii uu geystay garaacis iyo orod uu ka daba cararaya dilka xaaskiisa. ilaa ka tirsan booliska deegaanka Alakowe ee gobolka Uzun waxay beeniyeen inuu gacantooda ku dhintay ninkaasi, waxayna xuseen inuu geeriyooday kadib markii uu xanuunsaday oo ay ula carareen isbitaalka. daawadayaal waxaan iskaga gudbaynaa xubinteena dhacdooyinka layaabka. waxaad kala socoteen daalaca news channel, waana ku mahadsantihiin daawashadiina.